waan idin salaamay dadka Soomaaliyeed waxaan arkay fariin internetka ama Facebooka taas oo oranaysa Bailey ayaa kaabineetka maanta wuxuu diiday in ONLF laga saaro terrorist arrintaasi waa been weeye arrintaasi waan beeninayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa af jooga looma adeego waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha oo arrinta muhiimadeeda siiyay oo keenay kaabineetka maanta in arrinta la qabto waxa meesha ku jira waxa weeye aniga waa si aad ogtihiin marka wax la discuss kareeyo ama wax la naaqishayo ama wax la falanqeynayo agenda item baa jiro oo kaabineetku leeyahay agendaha item ka weyn kuma jirin markii aad business la galay ayaa arrinta la keenay aniga fikradan keenay waxay ahayd in arrintan muhiimadda ay leedahay loo yeelo oo agenda item kayaga lagu soo daro oo sharafta ay leedahay maqaamka gaarsiin la gaarsiiyo ayaanu taan ugu ka hadlay ma suuroobayso aniga Cabdiraxmaan Bailey ahaan inaan walaalahayga ONLF aan haysto terrorism ma dhacayso mana dhici karto qof waliba Soomaalinimadiisa waa la yaqaanaa aan wax ku suntanahay ina dani Soomaalida ka mid ahay Soomaalidana wanaageeda jecel ONLF Soomaalida dagaalantay ee wadankooda soo xoreysay maanta nabadgelyo dalka kulano ay yihiin marka khalad in la isfahamsiiyo ama la faafiyo waxaan sax ahayn ama si kale loo dhigo arrinta waa diidaya walaalaha ONLF waa soo dhaweynayaa ayaga laftoodan isna qaanaa aan qaarkood soo wada shaqeynay rag waaweyn oo is yaqaan baan nahay ha noolaadaan waana soo dhaweynaa laakiin anigu taas baan kaliya baan arrinteedu ahayd aad iyo aad baan